السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داودياش قيمة مدى جمعة ونكسن سيدو كلا كلانتي ونكسن كون سود وهذا برامج كنا ورجيسر بوع عسن عوانا سمينا قضبة سبورتس قدام بي سحب يا الهيل لانس ولا كل الدنيا بابريسكا أما جرائد يوروب هذه اللي تشيكوين إنجليز كعوان كوها قادنا سكوه هذا مانشستر يونايتد أو دينت الأول اللي جارت هل بليون ولا عقد دولار كمراكن كان إسبان هذه الشعب ألونسو جانس كالسيا يدب عن السوق قادنا إيريك غارسيا أو برشلونة قندراس دروسيحين طلياني يكوحود يوروب اللي وعدلاء كديجان إيو سوق الكونفرنس اللي كهردايان مدرج أصلاً آمسن إن الجو حلقة ميلان سير هذا قادل هاد مع الإسباليتي وجناي سوق قل سميناي شيكوين كاس ببرس طلياني كسارم هدي آتي صاحبنا وعصف فضلا جنال كان سبسكرايب نوصار أغيارت الجوكتنا وحنا مقال كان نولا قرية والمركة وانا سوق قادم إنجليز كجرائد جدا محاسارا مانشستر يونايتد لقى هلا إنكستو مانشستر يونايتد الشاعة كقادة فرلاتن ساعة كور إن فائدة سوق شيء جاريسو إلا 22 مليون دولار كمركة أوبريتين بروفيت كم haddana waxaa la deynta guud ee kooxda Manchester United lagu leeyahay waxay gaartay halkii ugu sareysay 1 billion oo dollarka Mareykanka ee Manchester United lagu leeyahay deyn ah si jaraa'idada maanta ku xadhan 1 billion in darada ayaa leeyahay laakiin Sir Jim Ratcliffe ayaa aaminsan lacagtaas deymaha Manchester United lagu leeyahay inay dhimi karaan sanadaha soo socdo sidoo kale tan by the time garoonka Old Trafford diyaar u noqdo 2030 iyo wixii ka dambeeyay in Manchester United ay noqon doonto koox dabcan deyn aan ugu lahaan doon wuxuu leeyahay marka Sir Jim Ratcliffe naadiga meesha aan ka keenay shalay iyo meesha ay joogto aad ay u kala duwan tahay sanad kastana wuxuu dhahay deymaha nagu leeyahay waa yareena inkastoo hadda 1 billion oo lacagta poundka dollarka Mareykanka deyn ahaan lagu leeyahay waxa sidoo kale Barbaris ka muuqda kooxda Nottingham Forest oo dabcan ku soo badiyeen away Europe markii ugu horeysay muddo 30 sano kadib waxa ugu dambeysay 1900 sida uu diiwaan gashan 95tii Forest away ku soo badiyeen Europa League Land Magas waxa ka caawiyay Igor Jesus oo bedel ku soo galay Brazilian kan ciyaar ee laba gool ay ku badiyeen sidoo kale tan away ayaan kooxda Utrecht ay la soo ciyaareen oo Holland ee tartanka Europa League markii 30 sano kadib away ku soo badiyeen Aston Villa ayagana waxa caawiyay Euro Tillmans away waxay kaga soo baxeen FC Basel kulan adkaay Crystal Palace na Europe Conference League ciyaar ayagana 3 gool away kaga basheen kooxda lagu magacaabo Shelbourne Beberiska ay saanihiin aan soo qaadan qodobka ugu weyn ee gossipka maanta oo jimcaha saaran jaraa'idada Ingiriiska iyo sheekooyinka kale qodobada ka kooban qodobka ugu weyn ee gossipkan waxa qaadanaya Mark Gaya oo difaaca kaga ciyaaray Crystal Palace iyo xulka Ingiriiska ayaa la sheegay haatan inuu kooxda FC Barmujan ku sii dhawaanayo waliba agaasimaha ciyaaraha kooxda FC Barmujan Max Ebrel ayaa qorsheynaya inuu wada xaajo toos la yeesho difaacan dhexe bisha Janaayo markii la gaaro 20 jirkaan Janaayo wuxuu heshiis la gaari karaa kooxdii uu doono waliba kooxaha Foreign Clubka Premier League oo ka dhisan meel ka baxsan gudaha Ingiriiska iyo heshiis dhac la gaari karaa maadaama uu gudaha galay Janaayo wixii ka dambeeyo 6 bilood ee qandaraaskiisa Crystal Palace in laga gatay ciyaaraankan warabilaha kabtankooda intii uu xagaaga free kaga tagay la marka Bayern hadii ay Gaya qalqalshaan waxa laga inuu doorto wuxuuna gali doonaa booska Diet Aubameyang oo kooxda ka tagay asagana si free kaga tagay sida Sky Sport Germany ee daabacayso إن عكلا كوحد إسباريس وحيد ديار وتعيارن كيوسف بزوم إن الجناي إيبيان شلاتن جيركان حلي قندراسكي سوكو إجي حجاجا إلا هذا لما هاي كوح كيبسنيسو حتى إسباريس وحيستان فرصة قندراسكي هالسن ودري كران سيدا The Times إدعاء عيسو إن عكلا كوحد أستون فيلا أيجان وحيكور الجليان نادي ليفربول عياريان كالومك على هارفي إليوت إنه كسوع علين دونام لباتي اللي بجيركان كدي مركي وجرانك في اللباك ديري كون نقضي ليفربول عن إسكالا سيدا تيم توك إدعاء عيسو إن عكلا أرسنال أي حسانس إلى يدب عن سوقه تان عياريان كالومك على رودريغو جايو سواء فلات جيرو برازيليانو وعيار ريال مدريد iyo sidoo kale waxay qalqaale ugu jiraan ninka lagu magacaabo Rafael Leo oo 26 jir kaasoo kooxda AC Milan ka tirsan sida code offside ee daabacayso qorshe waaweynka Gunners ku dagsan marka xagaaga ama Janaayo sida la soo daabacayo in cakale commissionerka ama dabcan mas'uulka ugu sareeya dhankaasi Major Soccer League Don Garber ayaa sheegay horyaalka Mareykanka laga soo dhaweyn doono Mohamed Salah gacmo furan ugu soo dhaweyn doono hadii uu go'aansado kooxda Liverpool ka tago sida Fox Sport uu sheegay in cakale Real Madrid weeraryahankooda mustaqbalka wanaagsan ee Gonzalo Garcia asigana waxa baadi goob ugu jirto kooxda VfB Stuttgart oo gudaha Jarmalka dhisan xilli 22 jirkaan uu diidan yahay gudaha Spain inuu sii joogo maadaama boss joogta uu ka waayay Madrid Sky Sport Germany daabacayso in cakala Manchester United gabi ahaan waxay beeniyeen sheekooyinka ku aadan Sergio Ramos oo free player inay qaadan doonaan kadib markii ciyaaraankan qandaraaska kula jiro kooxda Monterrey bishan uu ka dhacayo waxa jirta warar ku aadan United Ramos qaadanaysa laakiin United sheekadaas way beeniyeen sida ESPN ee daabacayso in cakala tan kooxda Bournemouth ayaa dareentay inaysan sii ceshan karin ciyaaraankooda Anthony Semenyo bisha Janaayo kooxaha Premier League ugu xoog badan isku haystaan saadartay ayagana waxay doonteen ciyaaryahanka FC Basel ciyaar garbaha ka dheer lagu magacaabo Philip Otella oo 26 jir si uu bedelka Semenyo u noqdo team top ayaa qodobkaas ka soo xigin karna marka sheekooyinkaas ee Babels Ingiriis saarna soo qaadanayna idinka raayina ka dhiibta marka annankaasi Spain aadayna jaraa'idada markii aan filan laba qodob saaran saan sheegnay qodob Barcelona qosay iyo qodob Madrid qosay
iyo mid kale Athletic Madrid qusay bal marka hore aan ku bilaawno majaladaha ka soo baxaan ninkaasi Madrid Marca AS maanta maxay leeyihiin waxay soo qaateen in Alonso la siiyay Janis kadib markii madaxweyne Perez iyo maamulka isla fahmeen in Alonso culays badan u saareen laakiin kulankii Man City bandhigu ay ciyaartooyda sameeyeen raja soo gashay maamulku waxay dhahay marka Alonso Janis kala ku siinay ee kooxda si hogaami walow majalad AS waliba si gaar ah ilaa Alonso Janis kala si inuu ka faa'iideysto hadii Deportivo Alaves uu ka badin waayo axadda toos u baxaa xitaa waxay leeyahay majalad AS Marca markuu Deportivo Alaves ka badiyo Madrid at least 2 toddobaad oo waxay guda galayaan sanadka cusub oo ina siina gali doonaan labadaas toddobaad ayaa maamulka inta fariistaan laga yaabay xitaa Alonso in qalbiga loo qaboojina laga rabo inuu axad shaqadiisa qabsado laakiin Super Cup ee Saudi Arabia lagu ciyaaray iyo howlahaasi waxa laga yaabaa inta baro cusub la magacaabo still marka Alonso mustaqbalkiisa miisku saaran yahay laakiin hadda waxa la rabaa kulankan axad in lagu moodo sida ee Marca AS leeyihiin soo kale majalada Marca waxay coverka weyn siiyaan ciyaaraanka lagu magacaabo Julian Alvarez oo sheegay Athletic Madrid ku qanacsan yahay manaba uusan ka fikirin dabcan xagaaga inuu baxo hadii ay jirto xagaaga ka fikiraya kaliya inuu Argentina World Cup kala qayb qaato oo kula guuleysto soo kale ciyaaraankan wuxuu dhaadiyaan Athletic Madrid cid ka sana tartami karnaa horyaalka hadii noqoto iyo Champions League wi adeer wuxuu tartanka qayban ka nahay sadartee marka macalinkiisa Diego Simeone uu maad celiyo Xordusan Simeone ahaan lahayn maanta anigana ma noqdo inuu ka dhawaajiyo ciyaaryahan tayo wanaagsan oo kooxaha Europe oo idil ee baadigo marka Alvarez wuxuu dilay gabi ahaan sheekooyinku aadan inuu isaga tagay saaxiibayaal kooxda kubadda cagta ee Real Madrid sida majaladaha Athletic Madrid sida majaladaha Marca AS ku daawacan soo kale labada majalad waxay ka hadlayaan saaxiibayaal culeysada kooxda Madrid haysto Mbappe tababar ku soo laabanaa ciyaar Deportivo Alaves uu soo laabanaa laakiin xidiga badan wali axad ka maqnaan doona kooxda Los Blancos soo kale AS waxay leeyihiin lama oga in Madrid ay Janaayo suuq galgali doonto in kale marka wallahi Madrid culeys badan haysto suuq galna loo maahay Alonso shaqadiisana miiskay saarantahay inacaasi markii aan firino Mundo Deportivo iyo Sport labadaba waxa saaran ayraade ninkii Eric Garcia qandaraas ku sameeyay wuxuu dhahay Eric Garcia waxaan diyaar u ahay kooxda Barcelona sanado badan inaan sii joogo Mundo Deportivo waxaan hogaamiyay Eric oo qandaraas saxay ninkan waxa waa kooxda si fiican ugu ciyaara qad dhaxdii la galshay difaacida meel walba ka dheelasa ka warqabna difaaci hore kooxda Man City oo hadda si fiican ula qabsaday naadiga Barcelona sidoo kale Sport waxay soo qaateen kabtanka daaha gadaashiisa waa ninkan tababarka markii la joogo qolka labiska ciyaartooyda soo ula hadlo madaxweyne Laporte Philip Whelan waa kabtanka daaha gadaashiisa xitaa hadii mustaqbal kabtan laga dhigo waa wuxuu u qalmeelay majaladaha sida hadda muuqata marka ciyaartooyda kooxda ugu muhiimsan oo qandaraas ku loo sameeyay kamid tahay Eric Garcia oo kooxda sanado badan sii joogay bal idinkan ay saaxiibayaal ee ra'yiga ka dhibta sheekooyinkaas Berberiska saaran iyo xitaa ciyaaryahanka ahaa dabcan Rodrigo de Paul heshiis amaah ku qaateen kooxda Inter Miami waxayna awood u leeyahay activation ku sameeyaan haddana way ku sameeyeen heshiiskiisa joogtay ka dhigan maadaama uu ka caawiyo ku guuleysiga laba koob marka 15 milyan oo euro Athletic Madrid lagu wareejiyay de Paul heshiiskiisa amaahda joogta ayaa laga dhigay saaxiibayaal dhankaas waxaan aadinaa gudaha Talyaaniga Modric Gabo wuxuu leeyahay Allegri wax kasto noo qaadi karaa kooxaha Talyaaniga xalay Europe bandhig fiican ka sameeyay Roma Fiorentina iyo soo kale Bologna oo guuleysteen aan soo qaadana Berberiska maxalliin Gazzetta dello Sport oo kale Modric soo qaateen oo taagan horyaalkeena way wuxuu dhahay dabcan wi aad isku wadaagto cid aan ka cabsanayna malahan Allegri wuxuu dhaw yaqaan sida xaaladahan kale looga dabaasho kooxda wuxuu dhawaa Milan anigana waligaan ku riyoon jiray Milan oo ciyaaro saadarta wuxuu riyadi waa ii rumood anoo hadda Milan u ciyaaray waxaan rabaa inuu ka dhawaajiyo koobka in la qaado Janis badan ma haysto Modric soo kale tan wuxuu sheegay ciyaaryahankan ciyaartooyda Milan kulligood inay ka go'aanteen in ay kooxda caawiyaan Milan ay ku soo celshaan maqaamka ee mudanteen dhinaca kale Gazzetta dello Sport waxay soo qaateen Lautaro Martinez oo asigana dabcan difaacay macalinkiisa Juve kadib guuldaradii uu kala kulmay Liverpool wuxuu dhahay waligii energy-ga Inter ay hayso sida hadda u xoogantay waqtiga ku xoogantay malaha Lautaro wuxuu dhawaan aaminsanay inaan horyaalka iyo Champions League qaadi karno bilis wuxuu dhahay macalinka xumaanta laga faafin hala joojiyo marka ciyaaryahanka Lautaro macalinkiisa uu garab taagay maadaama kabtanka kooxda uu yahay dhinaca kale hadii aan fadhino jaraa'idkan canka Corriere dello Sport waxay dhahan kooxaha Talyaaniga xalay wacdare ka dhigan Europe rankinka oo coefficient rankinka awoodda la isku haysto yaa xilli ciyaareedka dambe 5 koox oo Champions League imaanaysa safka hore Talyaaniga imaadeen waxayna u mahadcelinaa Roma oo xalay badiyeen sidoo kale Fiorentina oo guuleysteen iyo Bologna oo guuleysteen kooxaha marka shaqooda qabsan Inter Milan markii laga reebo toddobaadkan kooxaha Talyaaniga si fiican u ciyaar Roma 3 gool ever Celtic kaga soo badiyeen Ferguson kii la dhahay Brian Ferguson waa la diraa ayaa 2 gool xal ku tuurtay Nicolas Solna ciyaaryahanka lagu magacaabo Sol Argentinaskana shabaqa ayuu gaaray dhinaca kale tan kooxda Bologna ayagana Celtic Vigo ka soo badsheen ayadoo Brandeshka uu kaalintiisa u qaatay Fiorentina fiidka hore badiyay marka kooxaha Talyaaniga kaalintooda qaateen Europe marka la joogana waxa leeyahay Talyaaniga Europa League iyo Conference League aad ugu fiican yihiin saddexdan kooxood magaca Talyaaniga sare ay u qaadeen dhinaca kale waxay soo qaateen Gazzetta Corriere dello Sport ciyaaryahanka lagu magacaabo Jonathan David oo ku faraxsan imaanshaha Luciano Spalletti dhaawac balaha
Vlahovic uu galay sababta tan markuu Spalletti imaado Canadian-kan gool loo bilaabay kaalintiisana uu qaadanaa sida muuqato dhinaca kale kooxda Milan Nicolas Folklore inay ka soo qaataan West Ham United diyaar u yihiin soo kale xitaa waxa macquul ah ciyaaraanka lagu magacaasan Tega Jimenez West Ham lagu wareejiyo Milan weeraryahan u baahan tahay haddana Folklore oo Premier League ku weerara Jarmalkan lugta bidix ku ciyaara ay qalqaalo xoogan ugu jiraan haddii aan eegno majalada caanka Tutti Sportivo ayagana waxay soo qaateen saaxiibayaal Spalletti oo doonaya Frattesi inuu soo qaato weligiis oo jeclay xilligii Napoli uu joogay xitaa inuu keeno isku day u suurageli waas markuu qaranka macallin oo Spalletti uu ciyaarsin jiray Frattesi dista maamulka Juventus wuxuu dhahay marka la ii keeno David Frattesi oo Inter Milan ku dhiban oo inta badan dabcan ku jiro keed qorshahaas ayuu damacsan yahay ninka odaga dabcan Spalletti si uu qadkiisa dhex u xoojiyo saaxiibayaal ugu dambeyntii aan soo qaadana caawa kulamo kala duwan top 5 laga ciyaaray waqtiga ay soo galayeen Spanish La Liga kale Sociedad iyo Girona iska hor imaanayeen 11 habeenimo kulankan bilaabana Bundesliga Union Berlin RB Leipzig waa 10 bar habeenimo Serie A Lech iyo Pisa iska hor imaanaya 10:45 habeenimo halka Angers iyo Nantes kulankoodan uu bilaaban doono 10:45 habeenimo ee xilliga Geeska Afrika aqyaari guud ahaan barnaamijkan wargeysada intaas nooga egyahay waa inoo kulan dambe alla idmo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.